السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي إذا أنجع الله من البوء جوجتان waxaan rabaa inaan wax yar ka dhaho hubka maanta lagu qaatay Cabud Waaq ee la sheegay in laga keenay dalka Itoobiya ilaa haatan dowladda Soomaaliya kama hadlin, maamulka Galmudug kama hadlin, bal Soomaaliya eega haddii hubkaas maanta oo u gacan geli lahay kooxaha xagjirka ah ee ka dagaalama Soomaaliya imise dhibaato ayay ku geysan kareen, imise dhib ayay shacabka Soomaaliyeed ay u geysan kareen. Xuduudaha Soomaaliya sidaan ka warhayno ma jirto cid waardiyeyso, laakiin hadda waxaa muuqata in maamulka Galmudug iyo dowladduba hubkaas iyo dadka u socda ay ka warhayeen, maadaama la sheegay inay galbinayeen ciidamada NISA ee heestaga dowladda federaalka Soomaaliya, laakiin ka howlgala maamulka Galmudug. Dowladda Soomaaliya iyo maamulka Galmudug waxaa looga baahan yahay inay caddeeyaan hubkaas iyo ciddii lahayd iyo qaabka u socday. Itoobiya waan ka warhaynaa, waa waddan aan cadow nahay, waa waddan hadda furguf naga dhaxayso. sidaa darteed mar kastaba waxay ka shaqeysaa sidii Soomaaliya dhibaato u soo gaari lahayd, sidii isku dagaali lahayd, sidii isku burburi lahayd, inay hub soo gudbiso amba ha u soo gudbiso cadowga, amba ha u soo gudbiso qabaa'il, amba dad calooshood u shaqaystayaal ah hubtooda waxba kama ahan. sidaa darteed dowladda Soomaaliya waxaan uga fadhinaa haddaan nahay shacabka Soomaaliyeed inay caddeyso hubkan iyo waxa uu yahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.